muddo sanad ah ayaa ka soo wareegtay markii caalamka si xawli ah uu ugu faafay xanuun safmareen ah loona aqoonsaday inuu yahay xanuun caalamiya. Waxay waqtigaasi ka dambeeyeen guud ahaan wax isbedel weyn ku yimid nolosha aadanaha, gaar ahaan caafimaadka, waxbarashada, shaqada iyo dhaqdhaqaaqa xorriyadda. Xanuunkani sidoo kale uu galaabtay nolosha malaayiin qof oo caalamka ku nool. Xanuunkan ayaa sidoo kale abuuray hanaan cusub oo nolosha loola jaanqaadi karo. waxaase hareer socda dhibaatooyin kale uu xanuunkani laftiisa nolosha ku keenay. Haddaba barnaamijkeena warsan ayaan toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sanad kadib sida xanuunkani weli caalamku uu ku sii faafayo nolosheena uu saameeyay. watahay haddaba si aan arintaasi wax uga ogaano waxaan qadka taleefankii magaalada Stockholm caasimadda waddanka Sweden aan kula xiriiray Same Bagad oo ah saxafi ka tirsan idaacadda laanta afka Soomaaliga ee Radio Sweden. isaga ayaana weydiiyay basida xanuunkan corona uu asaga ka saxafi ahaan u saameeyay ama uu noloshiisa wax uga bedelay. waad mahadsantahay Ikraam. marka ugu horeysa su-aashaada runtii waa su-aal muhiim oo sida aad ka warhaysaba annaga qaybteena shaqada Sveriges Radio oo kale sanadkii hore markii aan helnay warbixinta in guryaha laga shaqayn karo, horta runtii dadku waxay u kala baxeen laba qayb oo qaar waxay yiraahdeen wax wanaagsan oo waxaan u baahannahayba inaan ka nasano safaradan nooga baxa tareenada iyo basaska, halka dadka qaar kalena ay yiraahdeen runtii waxa adkaan doonto in hawshii sidii hore oo loo qaban jiray ay u socoto. anigu ahaan marka haddii aan u soo jeesto tayda runtii waxyaabo fara badan oo dhanka aniga safarka oo kale ayay iga caawisay. saacado badan oo iga bixi jiray safarkii runtii way iga baaqatay, waqtigaas wuu ii baaqday, taasoo keentay runtii aniga sidaan u arko in hawshaydii ay noqotay tii aan qaban jiray mid ka wanaagsan marka loo eego micnihii saacadaha aan helay oo saa'idka oo noqday kuwa aan gelin micnihii shaqadii dhabteed la iga baahnaa oo ahayd tii saxaafadda. waxyaabaha runtii dhanka kale u sahlay micnihii corona ama nagu soo kordhaya waxaa ka mid ah iyada oo micnihii matalan dadka aan telefoonada ku wareysano oo kale farsamada aan isticmaalaynay ay noqotay in la xoojiyo. berigii hore markaa telefoonka ama qofkaynu ku wareysanayno adigoo aan joogin stuudiyaha xoogaa caqabada iyo ayaa ka taagnaa dhanka, laakiin farsamadii dhinacii technicadana waa la kordhiyey. annagina micnihii shaqaalaheena waxaan noqonay inaan ku dhiirano inaan isticmaalno micnihii qalabka iyo aaladda awalba loogu talagalay inaan ku shaqayno. samata marka aan ka soo tagno waxaa jira dee guryaha caruur ayaa jooga, adigu waxaa tahay aabba caruur ay kuu joogaan, bal ka waran see aad u samaysaa barnaamijyada marka ay caruurtiiba ay guriga ay joogaan oo jabaqdoodii iyo qayladoodii meesha la maqlayo, ma sahlan tahay mise waa wax aad u adag? runtii masalana caruur yaryar marka ay guriga joogaan oo kale waxaan xasuustaa mararka qaarkood aniga qolkan stuudiyaha u isticmaalo kale ku jiro in ilmahayga yararka mararka qaarkood iyagoo xanuunsan ama ka jooga oo kale meesha xanaanada ama iskuulka inay qolka igu soo galaan anigoo marka stuudiyi ama wax akrinaya oo kale ama qof wareysanayo oo kale. marka laakiin waxaan u sheegaa inaan aabbo mashquul yahay, dibadda igu sugaan qolka kale. taa marka xoogaa caruuraha yararka oo kale way dhici kartaa inay caqabad ka taagan tahay, iyo dadka qaarkood iyagana guryaha mataqaanaa ciriiriga ku nool kale caruur badan markaa haysato gurigina uu kooban yahay oo kale xoogaa inay yara adag tahay ayaan aaminsanahay in guriga laga shaqeeyo. laakiin sida kale caruurtu badankooda waa lala hadli karaa, waa loo sheegi karaa aabe iyo hooyo inay mashquul yihiin iyagoo markaana fahmaya.